boolisiga ama siyaasadda dawladdan waxa ugu horeeya waxbarashada maxaa yeelay waxbarashadu waa furaha horumarka arrimaha bulshada waa furaha horumarka arrimaha dhaqaalaha waa furaha maxaan ku rahaa horumarka arrimaha amniga aqoontu waa iftiinka nolosha waa furaha nolosha qof aan aqoon lahayn waa qof indhala dhakhtar haddaad rabto injineer haddaad rabto makaanig haddaad rabto wariyaal haddaad rabtaan siyaasiyiin wax walba waxay ka bilowdeen aqoontii aasaasiga ahayd 30 sano waxaa batay siyaasiyiintii xanaaqsanayd dhaqankii ay haleeyeen waxay xalaaleeyeen beentii waxay xalaaleeyeen inaan la shaqaysan wax badan oo diinta islaamka diidaysa yay xalaaleeyeen waa siyaasiyiinta xanaaqsan siyaasiyiin faraxsanna waa jiraan siyaasiyiinta xanaaqsan waxay ka shaqeeyaan waa run mustaqbalka Soomaaliya danka malaha waxa u daran dantooda shakhsiga ah yaa u daran waxay ka hadlaan negative wax xun ayay ka hadlaan wax dadka qalbi jabinaya ka hadlaan waxay ka hadlaan dalkan waa burburay ma soo noqonayo waxay ka hadlaan beesha caalamka noo timaado oo hana dhexdhexaadiso waxay ka hadlaan waana laga adkaaday ciidamadeena tabar ma laha hadalkaasi waa hadal calaacal hadalkii dhaqanka Soomaaliga ahaa lagu yaqaanay ma aha Soomaaligu waxa lagu yaqaanay nin dhiiran ama gabar dhiiran oo geesi